magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxay ka soo kabanaysaa burburka waxaana soo kordhaya saameynta ay ku leedahay horumarada iyo soo kabashada dib u dhiska caasimadda magaalada Muqdisho waxa caasimadda magaalada Muqdisho ka soconaya howlo dib loogu dhisayo dhismayaal dhaadheer iyo dayactiro lagu sameynayo dhismayaasha burbursan taasi oo qayb weyn ka qaadanayso bilicda caasimadda magaalada Muqdisho iyadoo ganacsatada iyo qurba joogta Soomaaliyeed ay wadaan dadaalo ay ku maalgashanayaan magaalada Muqdisho qaar ka mid ah injineeriyada iyo fuundiyaasha ayaa ka hadlay dhismayaasha ay ka wadaan magaalada Muqdisho injineer Xasan Jiilo oo karsi Xasan waay wallahi horta dalku waa dhismooyaa ma sha Allah anaga hada waa bari u badanahay ugu yaraan waa bari hada waxaan ka wadnaa 7 guri ama 8 guri markay tahay waxa dayactir gooni waaye waa fahmaysaa amuleena marka saasay waxa u jiraan aadaynu fiican tahay shaqada waxaan ahay fuundiyaashan oo gurigan fuundiyaasha oo dhisay wallahi ma sha Allah anaga waxaan fuundiyaanahay waxyaabaha joornatiin aan ka qaadano ciyaalkeena ku maareysana alxamdulillah wallahi ma sha Allah horta macnaha hore waxa loo dhahay dal walba dadkiisa dhisto marka anaga maanta diyaar waxaan nahay dalkeena inaan dhisano inkastoo lacag aan ka qaadano waxaan aad ugu faraxsanahay in dalkeena aan nadiifsano aan dhisano aniga Turkiye aniga Selim Agosto aniga project mas'ul aniga engineer guriga aniga apartment project mas'ul aniga şükür company maga kulmiye aniga labodokum tomoni sedda aniga sana aniga Somali şükür start Axmed Diiriye Cabdi oo kamid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay bilicda caasimadda magaalada Muqdisho sida ay ahaan jirtay 10 sano ka hor iyo hadda sida ay tahay magaalada Muqdisho sida sala ahaan jirtay sida maanta taa farq weyn u dhaxeeyo waa sadar muuqda su'aal ka dhan way iska cadahay Muqdisho maanta way soo noqotay ummadda Soomaaliyeedna way ku faraxsan yihiin meel kasta joogaan ka dhalinyar ahaan sida maanta taa si ka weyn inay noqoto ayaan u rajaynayaa Muqdisho waa muraayadii dalka waa caasimadii Soomaaliya waana ku faraxsanahay in ka shakhsi ahaan ka Axmed ahaan Muqdisho sala siday ahayd siday maanta taa farqi weyn baa u dhaxeeyo runtii Muqdisho 10 sano ka hor meeshaan waxay ahayd meel aan la mari karin oo la isku fiiqdo oo la isku furto maantana waad u jeedaan alxamdulillah wa ama binicmati rabbika fahadis marka nimcadan waa nimco rabbaani oo ilaahay oo nasiiyay marka waa inaan ku sugrino aniga si aan loo weynin nimcada maanta aan haasano gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Jaketi ayaa ka hadashay dib u soo noqoshada bilicda caasimadda magaalada Muqdisho sidaad ogtihiin ba caasimadda waa caasimadda dalka hooyo waa caasimadda Soomaaliya caasimadana sidaad ogtihiin ba magaalo walba caasimadeeda waa meesha kaliya ee bulshada Soomaaliyeed qof kasto magaaladeeda ku faanta ee tahay magaalada Muqdisho waad arkaysaan horumarka ee u talaabsanayso magaalada Muqdisho lama soo koobi karo waxay sameynaysaa heebadii hore u lahayd magaalada Muqdisho ayay dib u soo idlaatay ay soo celisay ganacsigii oo laba jibaarmay dhismooyin qurux badan oo midkii hore u lahayd heebadii u lahayd heebad ka wanaagsan ayay magaalada Muqdisho u talaabsatay daara aad u qurux badan ganacsatada Soomaaliyeed oo dib ugu soo celiyay dhaqaalahoodii horumar ay sameynayaan dadkii Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku maqnaa ayaa dib u soo noqday beri samaadkii ayaa magaalada caasimadda Muqdisho waxa ay ahayd mid soo jiidata indhaha bulshada caalamka waxayna lahayd goobo ku haboon dalxiiska iyo dhismayaal dhaadheer Maxamed Muuse Cusmaan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.